meelaha khatarta ah iyo isgoosyada. Inta aan ku guda jirno cashirkan waxaan ku baran doonaa sida loola macaamilo khatarta ka hor imaanaysa ama ka soo hormuuqan karta annaga oo raaci doona sharcigii MSM-ka iyo sida aan ula macaamili lahayn isgoosyada baabuurta isku dhaafto. Khatarta waxaa ka mid ah wax waliba oo bedeli kara xawliga gaariga ama jihada aad u socoto, waxaana ka mid ah leerarka kala haga gawaarida. sidoo kale astaamaha kaaga digaya khatarta waxaa ka mid ah astaanta askariga jiifa ama hambiska oo aad ku aragto tabeelayaalka, waxaana waajib kugu ah inaad adeecdo waxa ay kuu sheegayaan astaantaasi. si aad ugu fogaato shil ama halis kale, waxaa laga doonayaa inaad raacdo shuruucdan: haadadka, signal bixin, dhaqaajinta gaariga waxa ay noqonaysaa shuruuc kale. marka koowaad, inaad ku sugan tahay booskaaga saxda ah, xawliga iyo marshada ama giirka aad bedelato, iska eegis dhinacyada. haadadka, isticmaal haadka dhexe iyo kuwa garbaha xiga waqti hore. signalka baxso xilli fiican. isticmaalka signalka wuu ku caawinayaa ama wuxuu u degayaa dadka waddada isticmaalaya. booskaaga, si aad ugu fogaato shil ama khatar kale, waa inaad ku sugan tahay booskaaga ama laynkaaga. xawliga iyo marshada, marka aad go'aansato inaad leexato waa inaad xawliga gaarigaaga aad saxataa. intaasi kadib waa inaad gelisaa giirka ku habboon gaariga. fiirinta ama eegista, ka hor inta aadan qaadanin go'aankii ugu dambeeyey ee waddada aad ugu leexan lahayd, waxaa waajib kugu ah inaad hubsataa waddada nabadgelyadeeda. sida loogu dhowaado isgoosyada marka aad u leexanayso bidixda. markaad doonayso inaad ku leexato meelaha isgoosyada, waa inaad ku socotaa dhankaaga bidix. halka aad doonayso waxaa kaaga soo muuqan doona astaantaasi. marka hore iska hubi haadka dhexe, kadibna haadka bidixda. signalkana dhanka bidixda u shido. iskana hubi signalka inaad baxsatay xilli hore si aadan dadka u jahwareerinin. sidaasi oo kale waxaa lagaa doonayaa inaad iska hubsato signalka waddada aad ku shidanayso inay gawaari ka dhow yihiin. marka aad dhanka bidixda u leexanayso, waa inaad ku socotaa leynkaaga dhanka bidixda ah. si aad waddada ugu leexato, xawliga gaariga waa inaad hoos u dhigtaa, islamarkaana ugu fogaataa khatarta kaa hor imaan karta. waxayna taasi ku wanaagsan tahay inaad ku leexato xawli ahaan 10 ilaa 15 mitir/hour. haddaba dooro giirka aad doonayso inaad waddada ku gasho. inta aadan leexan, iska hubi haadka dhexe iyo midka bidixda ah. iska hubi waddada nabadgelyadeeda. markaad waddada si sax ah u saarto gaariga, mar kale iska hubi haadka dhexe si aad u ogaato xaaladda cusub ee waddadaasi, ama aad xawliga gaariga u siyaasato. markaad gooladda ku leexanayso, gawaarida dhanka bidixda ka imaanaya adiga ayaa waddada ka leh. haddaba sidaasi darteed, waa inaad qaadataa go'aanka ah in gawaarida ka imaanaysa dhanka midig iska hubisaa inay ku sugayaan. waxaa sidaasi oo kale lagaa doonayaa inaad waddada siiso dadka waddada ka tilaabaya. sida loogu dhowaado isgoosyada markaaad u leexanayso dhanka midigta. nidaamka loo maro in baabuurka lagu leexiyo dhanka midigta waa isku mid casharkii hore aan horey u soo marnay. hortaada waxaa kaaga soo muuqan doona astaanta waddada aad u leexan doonto. marka hore iska hubi haadka dhexe, kadibna haadka midig, kadibna signalka dhanka midigta u shido. ka taxadar inaad signalka shidatay xilli fiican si aadan u jahwareerinin dadka waddada isticmaalaya. markaad midigta u leexinayso, waa inaad bartamaha dhanka midigta aad ku socotaa waddada. waa inaad bilowdaa in gaariga xawligiisa aad yarayso. waxaa lagaa doonayaa ugu yaraan 10 ilaa 5 mitir/hour. haddaba dooro giirka aad waddada ugu leexanayso. inta aadan waddada u leexan, iska hubi haadka dhexe iyo haadka dhanka midigta ah, kadibna gaariga u leexi waddada aad doonayso adigoo hubsanaya waddada nabadgelyadeeda. markaad waddada ku leexato, iska hubi haadka dhexe inta aadan xawliga gaariga sii kordhin. haddaba waxaa lagaa doonayaa marka aad soo gaarto gooladda aad ku leexan lahayd, waa in gaariga afkiisa hore aad ku aadisaa halka waddada kala barta.
kadibna steerinka aad ku leexisaa dhankaasi. markaad dhanka midigta ka imaanayso waa inaad mudnaanta siisaa gawaarida ka imaanaya dhanka bidixda ah. haddii halka aad u leexan rabto ay gawaari badan marayaan waa inaad istaagtaa meesha aad ku leexan rabto. dooro giirka koowaad, iskuna diyaari inaad gaariga dhaqaajiso. haddii ay tahay waddada mid aad u mashquul badan waa inaad bareegga gacanta gelisaa gaariga. waa inaad sugtaa fursad aad ku geli karto waddada. marka ay ku dhaafaan gawaarida ka imaanaya dhanka bidixda iska hubi hadadka mar waliba. haddii aadan sida saxda ah waddada u gelin waxaa laga yaabaa inaad waddada meel hoose ka gasho, taasina waxay sababi kartaa shil ama halis aad u weyn. tusaale, gawaari aad iska hor imaataan oo aad madaxa isla gashaan. waa ay jirtaa mararka qaar aadan doorasho lahayn si aad waddada halka hoose ugu gasho. tusaale, halkii aad u leexan lahayd oo gawaari la dhigto dhanka bidixda ama midigta. inta aadan gaariga leexin baabuurka istaaji oo iska hubi waddada nabadgelyadeeda. mar waliba waa inaad taxadir badan muujisaa. tusaale, gaariga kaa horeeya oo aan signalka baxsan oo aad moodday inuu hore u socon doono laakiin dhanka midigta u leexday, adigana meel hoose waddada ka soo gashay, waxayna sababi kartaa shil aad u weyn. sidaasoo kale waa inaad ka fogaataa inaad waddada ka soo gasho meel sare, waa intaasi oo aad madaxa gaariga ku dhufataa waddada geeskeeda. waddooyinka mashquulka badan waxaa laga yaabaa inaad ku aragto calaamadda ah inaad gaariga u leexiso dhanka midigta ah sidaani oo kale. astaamahan kalena waxay u digayaan gawaarida dhanka bidixda ku socota ayagoo lagu wargelin rabo in gaariga dhanka midigta u leexan rabo. markaad dhanka midigta u leexanayso waa inaad raacdaa sharcigii MSM-ka adiga oo galaya halka lagu calaamadeeyey wakhti hore si aad ugu saamaxdo gawaarida kaa dambeeya inay ku dhaafaan. marka aad ku leexanayso waddada loo yaqaano T-junction-ka. markaad doonayso inaad waddada weyn ama waxa loo yaqaano T-junction-ka aad ku leexato waxaa lagaa doonayaa isla shuruucdii hore oo kale: haadadka, signalka, dhaqaajin, booskaaga, xawliga iyo giirka, iyo eegis. marka koowaad haadka dhexe fiiri, kadibna haadka dhanka bidixda ah. intaasi kadib signalka dhanka bidixda u shido. intaasi kadib waa inaad seedka aad ku leexan rabto isku aadiso, waana sida sharciga ah markaad leexanayso inaad seedkaaga ku socotaa. waa inaad xawliga gaariga hoos u dhigtaa, isla markaana aad qiimaysaa xaaladda gadaashaada ah iyo midda kaa horaysaba si ay kaaga caawiso inaad ka fogaato halis. haddaba waa inaad xasuusataa baabuurta saaran waddada weyn ee dhanka bidixda ka imaanaya ayaa adiga mudnaanta kaa leh. sidaasi darteed waa inaad gaariga istaajiso una oggolaato inay ku dhaafaan gawaaridaasi. mar waliba waxaa lagaa doonayaa inaad haadka dhexe iska hubisa iyo haadka dhanka bidixda aad u leexan rabto, iyo weliba inaad eegto waddada dhankeeda kale. markaad waddada gashana waa inaad hubsataa haadka dhexe si aad u ogaato xaaladda kaa dambaysa ee aad soo dhaaftay. haddaba markaad waddada tiida ah ka leexan rabto waa inaad hubsataa waddada ma mid furan baa mise mid xiran. iska fiiri astaamaha waddada. waxaad waddada ku arkaysaa astaanta loo yaqaano gifwayga ama mid kale oo waddada lagu mariyey, ama astaanta loo yaqaano istaag iyo mid kale oo iyada la mid ah oo waddada lagu mariyey. haddii aysan waddada ku oolin wax astaan ah waa inaad isxilqaantaa oo aad gawaarida siisaa. sidaasi oo kale waxaa lagaa doonayaa inaad ka taxadirto dadka waddada ka tilaabaya iyo gawaarida waddada sidadkeeda yaalla. taasina waxay kaa caawinaysaa go'aanka ah inaad gaariga istaajiso ama inaad horay u sii socotaba.
marka koowaad haadka dhexe fiiri kadibna haadka midigta xiga signalkana u shido dhanka midigta waa inaad ku socotaa booskaaga adigoo dhanka midigta ku dhowaanaya sidaasi oo kale waa inaad xawliga gaariga yaraysaa isla markaana qiimaysaa gadaashaada iyo hortaadaba waxayna taasi kaa caawinaysaa tilaabadii aad ugu ficil celin lahayd haddaba waa inaad xasuusataa baabuurta saaran waddada weyn ee dhanka bidixda ka imaanaya ayaa adiga mudnaanta kaa leh sidaasi darteed waa inaad gaariga istaajiso una ogolaato inay ku dhaafaan gawaaridaasi mar waliba waxaa lagaa doonayaa inaad haadka dhexe iska hubisa iyo haadka dhanka bidixda aad u leexan rabto iyo weliba inaad eegto waddada dhankeeda kale markaad waddada gashana waa inaad hubsataa haadka dhexe si aad u ogaato xaaladda kaa dambaysa ee aad soo dhaaftay haddaba markaad waddada tiida ah ka leexan rabto waa inaad hubsataa waddadama mid furan baa mise mid xiran iska fiiri astaamaha waddada waxaad waddada ku arkaysaa astaanta loo yaqaano gifwayga ama mid kale oo waddada lagu mariyey ama astaanta loo yaqaano istaag iyo mid kale oo iyada la mid ah oo waddada lagu mariyey haddii aysan waddada ku oolin wax astaan ah waa inaad isxilqaantaa oo aad gawaarida siisaa sidaasi oo kale waxaa lagaa doonayaa inaad ka taxadirto dadka waddada ka tilaabaya iyo gawaarida waddada sidadkeeda yaalla taasina waxay kaa caawinaysaa go'aanka ah inaad gaariga istaajiso ama inaad horay u sii socotaba